shirkadda Camil Group oo ka shaqeysa sarifka lacagaha qalaad qaab online ah isla markaana kamid ah shirkadaha ugu horeeyay ee sarifka lacagaha online-ka ah taas oo bulsho badan oo Soomaaliyeed lacagahooda ay dhigteen ayaa waxa xarunta ugu weyn ee Muqdisho maanta booqday gudoomiyaha abwaanada Soomaaliyeed Abwaane Xirsi Dhuux iyadoona halkaasi ay ku soo dhaweeyeen maamulka shirkadda gudoomiyaha abwaanada Soomaaliyeed Abwaane Xirsi Dhuux ayaa waxa uga mahad celiyay maamulka shirkadda soo dhaweynta ay u sameeyeen isagoona bogaadiyay shaqada ay hayaan waxaan ku faraxsanahay inaan soo booqdo shirkadda Camil Group qaybteeda financial-ka walaalo badan ka jiray magaalada warar badan isdhex maray marka horta Camil iyo Camil makaalada soo isku shaqo isku mid ah Camil oo English oo marka la fasirnaa Camil waa Camil karana ogeen waxaan ka soo rahay in shirkadda ay tahay shirkad ganacsiga oo sarifka caalamiga si fiican u taqaana aad ugu kalsoonahay waxaan kale ku kalsoonahay inay tahay shirkad hantila oo muxuu ahaa ilaa guri weyn oo dhow badan muxuu ahaa magaalada kule oo haddii wax taabtaan kabi karta xataa waan ku kalsoonahay inay tahay shirkad aad u taqaana maaragtay ka ganacsiga arrimahaas waxa ku saabsan waan ku faraxsanahay in aan wax khasaare ah iyo muxuu ahaa intaad waddan hoogaan isla dhintaaban waan ku faraxsanahay waana rajaynayaa inaad caawin doontaan shirkadaha kale oo arrimaha dhex galay Soomaalidu sideedaba markii uu qof moos ku iibiyo suuqa haddii la arko qofka ay toban islaamo ay waafay u galaan dadkooda suuqa dhan waxay ka dhigayaan suuq muusa loo bedelaya magaalada dhan marka wixii kulli wada ku arkay markii lagu arkayna waa lagu daatay marka waxaan rajaynayaa inaad tababaro badan iyo waayo badan aad sii doontaan dhalinyarada Yaasiin Axmed oo kamid ah maamulka shirkadda Camil Group ayaa sheegay inay jiraan shirkado kale oo ay magaca wadaagaan kuwaas oo suuqa ka baxay oo shirkadooda lagu qaldo isagoona sheegay in shirkadooda ay shaqaynayso isla markaasina aysan shirkadahaasi waxba iska qusaynin waxaan sharafeynaa nooca waxaan soo booqday gudoomiyihii golaha abwaanada qaranka Soomaaliyeed runtii oo ah dhagaxa indhaha iyo maqalka ummadda Soomaaliyeed ee shacabka Soomaaliyeed oo ku faraxsanahay booqashada gudoomiyaha runtii asagoo noogu yimiday inay jiraan buuq ka taagan arrimaha forex-ka runtii gudoomiyaha uu ku maasan yahay waa ajiro buuq badan oo kambaniyo suuq ka baxay bal qaarkood magacyada xataa inala wadaagaan so anigana waxaas bariyan kan hay oo arkaysan xafiis maanta inoo shaqeynayaan xafiiska waa furan yahay awaankeena la joogo waxaan lahay awaan soo dhawaaynay xafiiseen waa furan yihiin waxaa soo qabaxayaan shaqo ku mariyeen waxaan awba waxay ahaayeen waxa lagu furay awla laka iyo wax aan laga fiirsan soo marka suuq marka la soo galo waxa loo baahan yahay in ka fiirso iyo wax karaanka ah marka aad banaanka la imaato suuq marka soo galayso aan la isku tijaabin hantida ummadda Soomaaliyeed oo aan kaga digayna shacabka Soomaaliyeed naftirkooda meesha wax dhiganayaan inay iska hubiyaan runtii soo dhaweynaa maadaama wixii hanti oo qofku ku soo daaray ay tahay inaan maxaa lahay مثلا ما عن طلع خليه عن لسه شو بالعجيه أو تحي ماشي عن مال ويسكوبه ويجي روح وانتي أيهين جرانتي أيهين دمار قائلين shirkadda Camil Group ayaa waxay ka mid tahay shirkadaha sarifka lacagaha qalaad iyadoona ay shirkadii ugu horeeyay ee laga hirgeliyo Soomaaliya waxaana ku midoobay dhalinyaro Soomaaliyeed Maxamed Cabdi Bariye dalka TV Muqdisho